anigu diin baan ka qaybtan la yiraahdo nautical science macnaheedu waa maxay waxa weeyaan waa dadkii markabkan kaxayn lahaa markabka kaxayntiisu waxa weeyaan dad fara badan baa kaxeeyo oo ka shaqeeya markabka isagoo ay ku xiran tahay markab kastaaba inta tan uu leeyahay marka tan ku weynaadaba dadka shaqaaluhu way sii bataan markaan ku soo dhawaado qaybta nauticalku waxay ka kooban tahay dad skilled oo shaqooyinkan caadiga ah qabta oo de markabka iyo dayactirkiisa ka shaqeynaya ama rinji ha noqoto ama mataqaanaa xuquuqad ha noqoto ama shukaamintiisa ha noqoto ama haddii la idinka leeyahay de waxa allaale wixii dayactira markabku u baahan yahay dad baa jira ka shaqeeya iyo dad officers oo second officer chief officer iyo captain oo ugu sareeya kuwaasna waa kuwii markabka kaxaynaya markabku markuu badda marayo ama markuu dekada ku soo xidho ama kaargoogii ka rogayay markabka oo xisaabinayay ama hadhowta markuu badda marayo de bahalkii ka kaxaynayay from A to B ama mataqaana boardka halkan ka baxaya ilaa boardka kale si markabkaasi de uu noqdo markab de mataqaana meeshii loogu talagalay maraya meeshii doonayay inuu gaarana de gaaraya marka qaybtaas de nautical science baa la yiraahdaa waxaana weeyaan qofku de wuxuu bartaa wax ugu muhiimsan wax la yiraahdo seamanship oo ah markabkan iyo dayactirkiisii iyo ilaalintiisii iyo miisaan qaadistiisii iyo haddii la idinka leeyahay waxaas oo dhan qaybina waa qaybtan la yiraahdo navigationka oo ah de inaad markabka had iyo jeer ogaatid meesha uu marayo oo haddii la idinka leeyahay haddii aadan garanan meesha aad maraysid de waad lumasaa marka runtii qaybtaasi berigii hore aad iyo aad bay u adkayd barashadeeduna aad bay u adkayd sababtaa waxay ahayd xisaabaad iyo calculation iyo wax la yiraahdo astronomy ama dayaxa iyo xidigaha iyo qoraxda iyo cilmi caynkaasaa la isticmaali jiray laakiin iminka teknolojiyadan cusub waxay sahashay ama fududaysay in la soo saaro qalab taa lagaga kaaftoomayo oo GPS la yiraahdo marka kaasoo haddii la idinka leeyahay qalab yaroo de markabka saaran laakiin ku xidhan satellites dusha maraya ilaa 24 satellite oo loogu talagalay mataqaanaa navigationka iyo wax alaale wixii bad maraya iyo diyaarada iyo wax kasta qalabkaas oo isku xidhan satelliteska iyo qalabkan GPS-ka ayaa fududeeyay marka iminkana de kaasaa la isticmaalaa waxaa jira raadiyoyo kale oo saaran markabka oo haddii la idinka leeyahay haddii ay wax dhacaan iyadana la adeegsado marka nautical science-ku marka aan soo ururiyo wuxuu ka kooban yahay de waxaas oo dhan inuu barto raadiyoyada ha noqoto GPS-ka ha noqdo navigationka kale aan ka warramay ha noqdo iyo haddii la idinka leeyahay markabka iyo dayactirkiisa mataqaana soo markabka de marba wixii dusha ka haleysma inuu de qofku de yaqaano oo ka shaqeeyo iyo haddii la idinka leeyahay xiriir joogto ah oo qolada makiinada ka shaqeysa ee makiinada joogta iyo qolada dushu had iyo jeer weyn u jira de safgarasho iyo xiriir haddii kale de bahalkii lama wadi karayo waxaa jira adigoo dusha iska jooga inuu xumaanayaan marka ninkii injineerka ah de isaga weyn ka caawiyaa oo mataqaanaa marba wixii jira aad idinkii ka wada hadashaan marka markabku markuu badda marayo 24 saacadood dad baa shaqeynaya mataqaanaa dusha iyo hoostaba marka qaybta nautical science de qofka waxa la baraa waa waxaas sidoo markabkan uga adkaan kari lahaa ee u kaxayn lahaa markuu badda marayo iyo markuu dekada dhigayo kaargooga sida loo qaadayo ilaa kaargooga iskaga shubmaayo waxa loo baahan yahay markabka miisaankiisa si wacan loo ilaaliyo de waxa jira shuruudo iyo conditions markabka marka la rarayo iyo marka la dejinayo waxaas oo dhan baa de mataqaana qofka la baraa de kulliyadda kullaba sida shirta waxa weeyaan wixii secondary leavers ama secondary qofka soo dhamaystay ayaa kulliyadeeda geli karaya imtixaan baa laga qaadaa imtixaanka ardaygu hadduu dhaafo kulliyadda wuu geli karayaa oo dilaada kale wuu geli karayaa laakiin runtii waxaad midda secondaryadeennu inay weli yar hooseeyaan laakiin haddana qaar dhaafaa imtixaanada way jiraan laakiin waa uun ardayda ka soo baxaysa secondary-ga way geli karaysaa laakiin ardaydaasi waa inay noqotaa arday Englishkoodu wanaagsan yahay maadaama waxbarashada oo dhan ay English ku baxdo waa inay noqdaan arday Englishkoodu wanaagsan yahay oo haddii la idinka leeyahay ka bixi karaya tacliintan ay baranayaan